السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن حريق حسن وسنة وتقنان حوكسده هل كان إن كلا سو هذا أنا وحوكسده في الشارع بإذن الله تبارك وتعالى. وحن كسر قد الجرني برنامج كان لما قاعد بحي بدأ قيسك قال هالموضوع ده وحن كقد الجرني دقمضة وحن توصل شرحنا قيبة كم إذا دقمضي إن شاء الله عاون وحن فرقين دونا صدق حديد دحى دقمضها ميت كم إذا دقمضي نين كان وحى الإرادة صدق حليلة أيوب كم إذا هي حديد كيس حنتا يا الإرادة sida hadda maartay magacaad ka dareemi kartaan xidid waxa la yiraahdaa dadka maartay ehelka gabadha sida aabeed hooyadeed walaalkeed iyo walaasheed iyo inta la halmaalo ninka ragga marka waxa ka mamnuuca oo dhaqanka Soomaalida iyo diinta iyo dhan walba aan ku wanaagsaneyn inuu ka sheekeeyo xididkiis xumaantooda iyo maartay wixii maartay xataa ka tirsanay inuu san meelaha uusan maartay ku soo bandhigin oo wax aad iyo aad maartay ninka ragga inuu uga gaashaanta aad iyo aad u wanaagsan tahay mana ahan wax kamid ah dhaqamada Soomaalida in laga sheekeeyo xididka haddaba marka ninka ku sheego meelaha maxshirka ee dadku iskugu yimaadaan ee goobaha lagu shaaho asxaabtii iskugu yimaadaan uqaashi iyo dad walba badan iskugu yimaadaan ninka inta soo dhex istaaga ama soo dhex fariisto kaga sheekeenay xididkii haddaba waxa weeyaan waa mid kamid ah 10ka doqon ee soo xusnay haddaba waxaan rajeynayaa haddii aad maaragtay kamid tahay noocyadaas oo xididka ka sheekeyso inaadan maaragtay wixii hadda ka dambeeyay klibka haduu soo gaaro inaad ka waantowdo oo aad ogaato inaad kamid tahay doqomadaas haddaba si aad ku wantoobayso waxa weeyaan adigoo dib isku xisaabiyo joojiyo wixii hore waad ka sheekeyn jirtay haddii aad ka sheekeyn jirtay xumaanta iyo maaragtay faafinta ma garanaysaa xididka inaad mar walba aad ku fogan tahay haddii aad ku dhex jirtay wixii hadda ka dambeeyay insha Allah waxa loo baahan yahay haddii uu klibkan soo gaaro inaad bal xoogaa is yar xisaabiso dib aad isku fiiriso arrimaha ayaga aad ka wantoodo gabi ahaanba sidaan wada ognahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xarimay oo naga xarimayba in maaragtay qof bani aadam aan wax ka sheegno gaar ahaan ehelka olama sii jirtaba watan aayad quraana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku leeyahay suuratu al-hujurat aayad 12 ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta warkeeba jecel inuu cuno hilibka walaalkiis waliba asagoo meyd ah marka si kastaba inaad maaragtay qof bani aadam ah xamato wax ku wanaagsan ma ahan diin ahaan iyo maaragtay dhaqan ahaan intaba marka insha Allah bidnaa tabaaraka wa ta'ala waxaan rajeynayaa inaan noqono kuwa xifdiyo ilaaliyo ehelkooda iyo ma garanaysaa iyo inta la hashmaasho iyo gaar ahaan xididkana kuwa maartay aan qaybtooda aan ka sheekeyn noqonayo biidilaahi tabaaraka wa ta'ala aan ilaahay ka rajeynina insha Allah caawina maartay mawduucina halkan iyo mar weekan doona fadlan hadii aad nagu cusub tahay soo booqo channelkeena Xogsida Official hadii aad naga daawanayso Facebooka linkiga YouTube-ka waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta kore ee title-ka maartay video-ga uu ku xusan yahay hadii aad naga daawanayso YouTube-kana insha Allah waxaan rajeynayaa inaad nagu soo biiri doonto oo maartay subscribe dhigi doonto video-ga hadii uu ku qancina like saari doonto wixii kale oo maartay fikrado aad haysan inaad nagu soo gudbin doonto insha Allah biidilaahi tabaaraka wa ta'ala commentiga wixii anaga aan ku khaldanahay sidoo kale fariintooda waxaad nagu reebi kartaa commentiga وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.